السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمرك لإولالكين حكيم ياري official أبا عبد الحكيم سيدا وذا جرانيسان عاو محا إذين وذا كلتوا إذا مكون عارته مركو هو سلامتي بقول ثمانية أفرتا مع أن داودياش ku xiran janalka xakim yar official waad ku mahadsantiin daawashadiina dhiirigelintiina amaruba nagu dhiirigelinaysaan anakana waan ognahay dhibka u mareyno rafaadka u mareyno duubista kulleetu waa shaqo yar ma aha waxaa laga yaabaa qofka ku daawanaya ama ku fiirsanaya si tartiib sirtiisa soo jiifo inuu ku daawanayo hadduu marka qaar uu ku caynayo leeyahay waxaas uu hadlay laakiin maruba waxaan isku dayeynaa inaan idin dhiirigelino ka qoslaysiino waxyaabo xiiso leh aan idiin soo bandhigno sida wada ogtiin caaw maxaa idiin wada kulleetu waa xamaleynayaa talaado waaye arbaca waaye kulleetu barnaamij tixano ah ayaa jiray oo la dhaho waa maxay jaceyl kulleetu waa dareemi karta markii la dhaho waa maxay jaceylku waa dareen kaas oo kasoo meexda qalbigaada ma aha mid aad qasbanaysid ama dheesid saambaa u samayn karaa jaceylku waa dareen ka imaada naftaada gudaheeda ama qalbigaada aadna dareemaysid markaa aragto qof aad ku qanacdo ama niyadaada calmasho sidaa u taqaaniin qof baa ka calmatay qofka markaa calmatay waa mashqaansatay waa jeclaatay sheeko dheera baa indhex martay sheekada indhex martay jaceylkii saa'id uu noqday qofba siba u dareemayaa jaceylka ra'yi ahaan jaceylku waa dareen waa nolol qurux badan waa nolol guur iyo farxad xambaarsan haba xambaarsanaadee dadka qaar ayaa qalad ka dhigto ama qalad u isticmaala ereyga jaceyl markii la dhaho waa erey aad iyo aad u weyn because qofka markuu wax jecel yahay asi ayaa dareemi kara qaabka uu wax u jecel yahay oo tusaale ahaan haddii la isku tusi karo qofka suu kuu jecel yahay way habboonaan lahayd oo mar hore ayaa la muujin lahaa laakiin lama muujin karo laakiin qofka wuu kuu sheegayaa ama waa ka dareemaysaa indhihiisa inta uu kuu qabo jaceyl ama xushmad uu kuu hayo because jaceylka uu kuu qabo ma aha mid yar because markuu qofka kusoo hor fadhiisto jaa waa dareemi kartaa noloshiisa iyo wixiita iyo indhihiisa kuleet qaab ama tixgelin gooniya ama si kale ha ku xushmad saa'ida unbaa ka arkaysa dhankiisa inuu ku wanaajinayo hadal qaldan xataa markaa ugu jawaabto kuleeto asiga lama aha qalad oo wuu la seexan yahay because naftiisa ayuu kaa jecel yahay jaceylkaasoo keenay mid uu adig kuu qaba ah sababtoo ah hadduuna ku jeclayn waxyaabaha qaar kuuma dulqaadanayo oo dadka ayaa ula simantay oo kirmika dhahdo oo iska dhicinayaan because laakiin qofka ka aamusan qadarin gooniya jacayl gooniya xushmad gooniya mar walba inuu kuu dadaalayo mar walba horumarkaada raadinayo mar walba farxadaada raadinayo uu ku dadaalayo siduu kuu hormarin lahaa adi sababtoo ah waa naftiisu kaa jecel yahay naftiisa hala gooy ee taada hala gooy wuxuu ka jecel yahay tiisa in go'do sababtoo ah aad bay ku jecel yahay jaceylku ma aha wax dareen lagu cabiri karo ama tusaale la isku tusi karo laakiin dareenka qofka qalbigiisa ayuu ka imaado waana dareemi kartaa qofka marka uu ku jecel yahay wuxuu ka imaanayo waa qalbigiisa hadallada uu dhahayo ama geeraarada ama heesaa uu kuu qaadayo ma aha xumaato kama ahan waa nolol iyo farxad uu adig kaa dhex arkayo oo u maleeyo farxadiisa iyo noloshiisa iyo hamiga uu leeyahay adduunkoo dhan aduu kaa dhex arkaa because wuxuu ku muujinayaa wanaag xishmad sharaf mar walbana wuxuu qadarinayaa jaceylka aad uu kuu qabo because si walba ayaa u xumaysid ama aad u aflagaadaysid uma arko xumaato sababtoo ah jaceylkiisa ayaa ka weyn hamiga uu leeyahay ma aha hadalladaada inuu tixraac ku sameeyo ama tafatir qofka markuu hadalkaada tafatirayo dib u raacayo waa qof aan ku jeclayn yani saasay dhexda ku dhahayo laakiin qofka ku jecel kuma dhahayo wuu ka aamusayaa inta laga aamuso qof bini aadana markuu xanaaqo unbuu hal mar kugu kacayaa uu leeyahay aniga waan ku jeclahay mar walbana sidan ayaa idhexdaa taasna kaama mudni ee walaalo macaano iga dhaaf ama walaalo iga dhaaf sababtoo ah wax aan heer ku gaari karna ma aha because jaceylku waa farxaddaasoo ka imaata qalbiga ama dareenka qofka uu ku siinayo ama uu kugu hamigiisa ah mana ka aha kaama gadanayo lacag kuma siinaysid qarash kaama qaadanayo because jaceylka uu kuu qabo ayaa ka weyn wax walba sababtoo ah jaceylku ma aha wax inta la qabto la qiyaasi karo ama la miisaami karo waa nolol weyn adduunkan ajood jeedaan way ka weyntaa marka aad dhex gasho uma malaysid yacni maalin xataa inaad murug ku qabato ama waxa la aan noqotay because wuxuu ku leeyahay hantida adduunkoo dhan jannada adduunka inaad dhex joogto sababtoo ah ma dareemi kartid jaceylka aad muujinaysid qofka u muujinaysid inuu yahay wax yar
because adna waa dareemi kartaa qofka ku jecel marka uu ku imaado waxaa ka dareemaysa waxyaabo aad iyo aad xushmad saa'ida farxad saa'ida yacni koolkoolin canug yaroo la dhalay sidee loo koolkooliyaa kolayt waa aragteen sida loo koolkoolinaya canug yaroo la dhalay maanta canug hadduu ku dhasho aragto ilaa uu ka weynaanayo laxab gooni buu kugu haya ama dareen gooniya jacaylkuna waa sidaa oo kaleeto ma aha wax yar maalin lagu qiyaasi karo laakiin jacaylka hadda jira wuxuu iska yahay waa ku arkay waa ku caashaqay sababtoo ah waxaa arkaysaa waxaa lagu leeyahay maanta shalay qofkaan baa isjecla waa kala tagnay taasi jacayl maaha jacaylka dhabta ah ma keeno qofka inuu qof kale ka fogaado wuxuu keenaa inuu ku soo dhowaado oo marba marka ka dambeyso uu soo dhowaanayo ilaa ay gaarto xeer mustaqbal future ilmo isku dhalaan xataa haddii isku duqoobaan iyo weli xushmadii jacayl dhex taalo sababtoo ah jacaylkii qiimihiisa ayay qarin laakiin kan hadda jiro ayaa ah mid kuteen ah oo u malaysid in wax nolol adduun ah waxyaabo maalmo kooban oo dan ay ku xeeran tahay laakiin jacaylka dhabta ma yaqaano dan iyo duruuf sababtoo ah aad buu u adag yahay waxaas dhan indhaha jacaylka ayaa ka xiran wuxuu higsanayay waa hal ra'yi kaliya waana inuu qofka uu jecel yahay nolosha la qaybsado hamigiisa iyo farxaddiisa ay tahay qofka uu jecel yahay inuu la qaybsado uu la aqalgalo awlaad ilaahay ka siiyo iyo haddii kaleba cumrigiisa inta dhiman ama inta iilka laga keenayo nafta laga qaadayo inuu la noolaado halkaa qof sababtoo ah waa noloshiisa dhan farxaddiisa dhanba waxay ku xiran tahay waa iyada agteeda wuxuu u maleeyaa meel kale hadduu aado inuu farxad ka helay taas ayaa la dhahaa jacayl ma aha in inta kugu imaado u iraado waan ku jeclahay berina aan kaaga baxo aan dhaho saaxiib ani dan baa lahaa danteyna gaaray nagu kalaba marka asxaabta waxaan leeyahay kolayta sheekadan waxay noqon doontaa sheeko tixanaa marba haadba maalinba maalinta ka dambeyso idin xiisa geliso kolayto waad mahadsantihiin fadlan haddaa ku cusubtahay janalka xakiim yar official subscribe share like dheh shaarkata noo badi si adduunka daafihiisa dadka jooga ee soomaaliyeed ay u daawadaan ehelkaada iyo qaraabadaadaba waa mahadsantahay thank you so much salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala